soo dhawaada caawa waxaan ku bilaabaynaa oo eegina wararkii ugu dambeeyay Kampala oo caasimadda Uganda ee halkaasi oo laba bam ku qarxeen bartamaha magaalada booliska ka hortagga argagixisada ayaa waliba waxay sii raadinayaan in jiraan bambooyin kale oo magaalada la dhigay haddii aynu eegno muuqaalo lagu soo bandhigay shir jaraa'id oo boolisku qabteen waxaa ka muuqda laba qof oo ismiidaaminayaal ah oo saaran mooto oo isku qarxinaya meel u dhow baarlamaanka Uganda ee Kampala ma jirin cid si degdeg ah u sheegatay mas'uuliyadda weerarkan laakiinse saraakiisha booliska ayaa sheegay 6 qof dhinteen 3 ka midna ay ahaayeen kuwa iyagu weerarkaasi soo qaaday haddaynu eegno cisbitaalada magaalada Kampala 10 dhaawac ayaa cisbitaalada la geeyay kii afraad isagu weerarkaas ku soo qaaday ayaa isagana la qabtay qaraxa ayaa ka dhacay hadaba baarlamaanka agtiisa waxaana kamid ahaa dadka dhintay 2 askari dawladda ayaa sheegaysa in waxyaabaha qarxa laga helay qaybo kale oo kamid ah magaalada dawladdu waxay ku eedeysay weerarkan koox xag jirin muslim oo la yiraahdo Allied Democratic Forces imika taliyaha booliska ama afayeenka booliska ayaa isagu ka hadlay shilkan clearly revealed how the male adult kaamarooyinka ammaanka si cad ayaa loogu arkayaa nin xiranaya jaakad madow oo sita boorso nooca dhabarka lagu qaato oo qarxinaya bamkii uu watay oo isla goobta ku dhintay firirka qaraxa bamka waxa uu gaaray ilaa 30 mitir taasina waxay gaaraysaa halka dadka lagu baaro ilaa xafiiska hore ee xarunta dhexe ee booliska of about 30 meters, that is from near the checkpoint up to the front desk office at the Central Police Station. wararkii ugu dambeeyay magaalada Kampala waxa goordhow noo soo dirtay wariyaha BBC da Patience Otiere. What we do know is that one of the explosions happened right waxa ognahay waa in mid ka mid ah qaraxu uu ka dhacay meel u dhow xarunta dhexe ee booliska waa bartamaha Kampala meel aad looga buuxo oo gawaari iyo dad badan joogaan oo u dhow xarun dukaamo dhinaca kalena ay xarunta booliska tahay qaraxa labaad waxa uu ka dhacay meel u jirta in ka yar kiiloomitir oo u dhow xafiiska madaxda magaalada iyo baarlamaanka markii aan nimid booliisku waxa ay weli wadeen baaris gadaasheedana ayay ka muuqdaan iyagoo goobta baaraya xitaa waxaa la socda eeyo uriya qaraxyada si ay u baaraan dhammaan goobta iyo hareeraha baarlamaanka waa meel aad muhiim u ah oo ay ku yaalaan xafiisyo muhiim ah oo dawladeed iyo wasaarado waa wax laga naxo gaar ahaan goobtan sababtoo ah waa meel aad ay booliisku u joogaan baraha bulshada ee Uganda wax badan ayay ka hadleen arrintan oo ay dhaheen maxay tani muujinaysaa waxaana ka soo wareegtay wax ka yar bil markii ay bishii hore 2 qarax ka dhaceen meelo kala duwan oo dalka ah oo ay ku jirto qayb ka mid ah Kampala marka aad ayay naxdin u tahay